السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقيرت يوتيوب كداونيسي موافقة أوفيشال. فضلا داك عصبت يوتيوب كسبسكرايب صار فيديو كان لايك غري ما أنت حيدين ودنا سؤال كل ويدي شيخ وريح عنك عبد الحفيد ويدي الشيخ لو مقعابه الشيخ سعيد علي الراقي كواس أو كصابسن أريمها جوركا iyo farqiga u dhexeeya ragga Soomaalida iyo kuwa ajaanibta. Cabdixaafid oo ku tilmaamay ragga Soomaaliya kuwa aan romantic aqoonin oo ah ribaadiyaan nala daawo. gabar yar oo waxa arkaysaa 15 jir 16 jir oo lagu leeyahay laba nin baa soo furtay. waxa laga yaabaa qudheeda inay inantu aanay fahamsanayn waajibaadka iyo xuquuqda aan saaran ee ka saaran xaqa ninkeeda. qowmada la sheegaya waxa weeye inuu gurigu madax yeesho, inuu madax iyo mijo kala yeesho. gurigu ma jirto dawlad laba madaxweyne leh. inamadii looma ogola inay rag noqdaan, waxaa la doonayaa inay hablaho kala noqdaan. in meelo fara badan oo waalidku qudhiisu uu sabab u noqdo furisti. ragga Soomaalidu waa rag qalafsan oo adag oo aan romantic ahayn oo reemiyi ah. waxay u baahan yihiin in jacaylka la baraarinta wax ka leedahay. guurka ajnabiguna uu haraqaadaa kuwa Soomaaliduna waa guul daraysta. guurka ajaanibta ah ku tilmaamay mid hana qaada kan Soomaalida ahna ku tilmaamay mid aan hana qaadin, taasoo ay u baahan tahay in dhalinyarada Soomaaliya iyo ragga Soomaaliya la baro jacaylka. haddii aad doonaysid fiidiyogan soo dhameystiran fadlan ka soo daawo page-ka uu ku leeyahay YouTube-ka wariyaha caanka ah ee Cabdixaafid